السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaan barnaamijka ku soo qaadan cudurro yaab badan oo maskaxda ku dhaca iyo shaqooyin ay maskaxdu qabato oo dadka qaarkiis aysan ka warahayn. waxaan ka hadli doonaa dadka indhaha aan waxba ka arki karin ee ay maskaxdoodu wax u aragto iyo weliba qayb maskaxda ka mid ah oo hadalka ku shuqul leh iyo dad ay halkaasi jug ka gaartay cudurrada yaabka badan ee ku dhacay sida sheekada ninkii ereyada cayda ah ay ku adkaatay inuu ku dhawaaqo iyo dadkii caydu u fududaatay laakiin hadalladii kale ay ku adkaadeen. balse marka hore aan wax yar ka taabto muhiimadda ay maskaxdu u leedahay jirka bini'aadamka. sida la wada fahansan yahay shaqooyin badan ayay maskaxdu qabataa oo la'aanteed lama noolaan karo. lugtaad qaadid iyo gacantaad dhaqdhaqaajisidba amar maskaxda ka yimi ayaa fududeeya. waa waxa keenay in dadka dhaawac ka gaaro lafdhabarta ama xangulaha ay curyaan noqdaan. taas macnaheedu ma aha in murqihii lugaha ay dhibaato gaartay ee si muruqu u shaqeeyo waa in amar xagga maskaxda ah ka yimaada. marka dadka dhaawacu ka gaaray neerfihii amarka qaadi lahaa awood uma yeelanayaan in murqaha lugahooda ay dhaqaajiyaan. shaqooyin badan oo kale oo jirku sameeyo ayay maskaxdu door weyn ka qaadataa. bal aan fiirino hadalka iyo sida ay maskaxdu uga qayb qaadato. waxaa jira qaybo maskaxda ka mid ah oo xiriir la leh hadalka iyo luqadda. mid ka mid ah waxaa la dhahaa Broca's area. haddaba sidaan ayay saynisaanadu ku ogaadeen qaababka ay maskaxdu u shaqayso. haddii qof cudur ama dhaawac qayb maskaxda ka mid ah uu ka gaaro, markaas ayaa la ogaan karaa sida uu qofkaasi isu bedelay. marka dadkaas ay qaybta maskaxda ka mid ah ee la dhaho Broca's area cudur ama jug ay ka gaarto ayaa waxaa la arkay inuu hadalku ku adkaado. qaybtood waxaa dhici karta inay hadli kari waayaan, sida xaaladii ninkii Faransiiska ahaa oo ay qaybta maskaxda ka mid ah uu waxyeelay faalig ama stroke maskaxda kaga dhacay. ninkaas ayaa waxaa la sheegay in kelmado aad u yar uu ku hadli jiray oo ay ka mid ahayd kelmadda Faransiiska ah ee ah aniga iyo kelmado cay ah oo u fududayd inuu dhaho. waxaa la arkay dad badan oo qaybtaas maskaxda ka mid ah dhibaato ka gaartay in kelmadaha caadiga ah ay ku adag tahay inay dhahaan, laakiin kelmadaha cayda ah ay u fududaatay. taas waxaa ka duwan sheekada ninkan kale. sanadii 1993 ayaa waxaa la soo helay ninkan oo jiray 75 sano oo qayb maskaxdiisa ka mid ah oo cudur kaga dhacay. ninkaas ayaa si caadi ah u hadli kara, laakiin awood uma leh inuu ereyo cay ah ku dhawaaqo. markaas ayaa waxaa la ogaaday in ereyada cayda ah qayb kale oo maskaxda ka mid ah ay qaabilsan tahay. ninkan aan ereyada cayda ah aan ku dhawaaqi karin ayaa waxaa dhibaato ka gaartay qayb maskaxda ka mid ah oo la dhaho basal ganglia. qaybtaas ayaa waxyaalo badan qabata oo ay ka mid yihiin caadifada ama emotionska. ereyada cayda ahna maadaama ay dareen iyo caadifad xambaarsan yihiin, qaybtaas maskaxda ee la dhaho basal ganglia ayaa qaabilsan. aan u soo noqday marka dadka Broca's area ama qaybta maskaxda ee hadalka qaabilsan ay dhibaato ka gaartay, dadkaasi waa ku adag tahay inay ereyo badan ku hadlaan. su'aalo haddii la weydiiyo si caadi ah ayay u fahmayaan, laakiin markii ay isdhahaan ka jawaab su'aasha ayaa hadalku ku adkaanaya. dadkan ayaa laakiin waxa u fudud ereyada cayda ah. mararka qaarkood ayaa waxa lagu arkaa iyagoo caytamaya maadaama uu hadalkii kale ku adag yahay. dadkan hadalku dhibo ayaa sida kale caadi ah. markii ay ku adkaato in wixii ay rabeen ay sheegaan ayay waraaq ku qoraan si loo fahmo. dhibaatooyinka maskaxda gaara ee hadalka dhibaato u geysta ayaa waxaa Ingiriiska la dhahaa aphasia. dhowr nooc ayay u qaybsantaa oo nooc ka mid ah waa dadkaas hadalku ku adkaaday ee aan ka soo hadlay. oo xaaladooda waxaa Ingiriiska lagu dhahaa expressive aphasia. inta badanna qaybta maskaxda la dhaho Broca's area ayay dhibaato ka gaartay. waxaa jira iyaduna xaalad kale oo aphasiada ka mid ah. dadka ay xaaladani ku dhacdo ayaa waxaa dhaawac ka gaaray qayb kale oo maskaxda ka mid ah oo la dhaho Wernicke's area. qaybtaas maskaxda waxa ay ku shuqul leedahay fahanka ereyada macnahooda. marka qaybtaas haddii ay dhibaato gaarto, waxa ku adkaata dadkaas inay hadallo macno xambaarsan ku hadlaan. tusaale ahaan haddii la weydiiyo maxaad maanta qabatay, markaas ayaa waxaa dhici karta inuu ku jawaabo talaadadii socodka dameerka la aaday, iyagaba ka dulbaxay wadada gaarigii ayaa ka soo laabtay. waa hadal aan macno samaynayn oo dhinac loo dhaqaajiyana aan la garanayn. laakiin marka ay sidaas u hadlayaan waxa ay isu haystaan in hadal la fahmayo ay ku hadlayaan. marka waxaa lagula taliyaa dadka qaraabadooda ah in sawirro oo kale ay adeegsadaan ama hadallo kooban oo si tartiiba loo yiri lagula hadlo. waxaa kaloo la geeyaa xarumo caafimaad oo ku shaqo leh in la caawiyo dadka hadalka iyo luqaddu dhib ku tahay kadib markii qayb maskaxdooda ka mid ah ay dhibaato ka gaartay. haddaba labada nooc ee dadka maskaxda dhibaatada ka gaartay ayaa kala duwan. qaybtood hadalka ayaa ku adag, laakiin wixii lagu dhaho waa fahmayaan. jawaabta ay rabaan waa ay qori karaan.
halka qolada kale ay ku adag tahay in wax lagu dhahayoba ay fahmaan laakiin si tartiib ah u hadli karo oo u daldalmaya inkastoo hadalkooda uusan micno samaynayn. Aan u gudbo marka sheekada dadkii indhaha la'aa ee maskaxdoodu indho u noqotay. Maskaxdu door weyn ayay ku leedahay aragga, oo indhahaagu waxa ay arkaan waxa ay u gudbiyaan maskaxda. Waxa sii qaada neerfa loo yaqaan optical nerve. Neerfahaas haddii ay waxyeelo gaarto qofkaasi indhool ayuu noqonayaa oo ka soo laabasho ma leh. Laakiin haddii qofku qaybo kale oo isha ka mid ah ay dhibaato ka gaarto oo uu sidaas indhool ku noqdo, waxaa dhici karta in qaliin lagu sameeyo oo araggu u soo laabto. Qaliinka ugu yaabka badan oo isha lagu sameeyo ayaa ah in dadka qaybta kore ee isha cudur kaga dhacay oo sidaas aragga ku waayay in qaliin intii lagu sameeyo ilkahooda mid ka mid ah laga soo saaro, markaa kadib dalool yar intii loo sameeyo muraayad la geliyo. Markaas kadib ayaa iligaas isha loo ekaysiiyey la gelinayaa meeshii isha, taasoo keenaysa in qofkaasi si caadi ah uu wax u arko. Maadaama qaybta dambe ee isha iyo neerfuhu ay caafimaad qabaan, ayaa iligaasi waxaa lagu bedelay qaybta muuqata ee isha ee cudurku saameeyey. Haddaba waan ognahay in isha dhibaato gaarta ay indhabeelitaan keeni karto iyo inuusan qofku wax arag, laakiin waxaa jira dad indhahoodu caafimaad qabaan kor iyo hoosba oo haddana aan waxba arki karin. Dadkaas ayaa maskaxda qaybta aragga qaabilsan ay dhibaato ka gaartay oo sidaas daraaddeed indhahoodu wax way arkaan. Laakiin wixii ay indhahoodu arkayeen, qaybtii maskaxda ee ku shuqul lahayd aragga ayaa dhibaato gaartay. Sidaas daraaddeed qofkaasi wax ma arki karo ama araggooda ayaa aad u naaqusa. Xaaladaas marka dadka indhahoodu caafimaadka qabaan, laakiin maskaxda cudur ama jug uga dhacay darteed aan waxba arki karin, ayaa waxa loo yaqaanaa cortical blindness. Qaar ka mid ah dadkaas ayaa waxaa dhici karta in muddo kadib araggooda qayb ka mid ah uu u soo laabto, halka qaarkoodna ay sidaas aragga ku waayaan. Haddaba marka waxaan soo sheegay in haddii neerfaha waxa ay ishu aragto qaada oo maskaxda u geeya haddii ay dhibaato gaarto oo shaqada ay joojiyaan, oo qofkaasi rajo uusan lahayn in mar dambe uu wax arko. Laakiin waxay u egtahay in arrintaasi isbedelayso oo teknoolojiyad la tijaabiyey sanadkan ayaa arrintaasi fududaysay. oo waxa la isku dayay ma intii kaamiro la duubo maskaxda qaybta aragga ku shuqul leh loo gudbiyo si ay maskaxdu u fasirto oo markaasi qofkaasi wax arko. Arrintan ayaa waxa fududaysay in wax laga ogyahay sida ay maskaxda bani'aadamku u shaqeyso, oo maskaxdeenu waxa ay ka samaysan tahay 10 balaayiin oo unugyo neerfa ah. Markii laba neerfo ay wax isu dirayaan ayaa marka waxa jira qalab lagu dareemo korontada ay neerfayaashaasi isu gudbinayaan, oo waa la fasiri karaa waxa ay ishaarooyinka maskaxdu tilmaamayso. Barnaamijdan ayaa ka diyaarin doona mowduucaas hadduu alla idmo. Marka dad indhool muddo badan ahaa oo neerfaha aragga qaada uusan shaqaynayn, ayaa waxa ay dhakhaatiir isku dayeen in kaamiro ay u gudbiyaan maskaxda si ay wax u aragto. Haddaba barnaamijkan kaamirada loogu gudbinayo qaybta maskaxda ee aragga ku shuqul leh ayaa waxaa fiidiyogeedii loo bedelayaa koronto, iyada oo dadkaasi qaliin lagu sameeyay oo qaybta maskaxdooda lagu xiray qalab yar oo korontada u gudbinaya maskaxda, taasoo fududaysay in maskaxdu fasirto waxa ay kaamiradu arkaysay. Teknoolojiyadan oo bilow ah ayaan keenin 100% in dadkii araggu u soo laabto, laakiin waxa ay kala sooci karaan waxyaalaha iftiinkoodu kala duwan yahay. Tusaale ahaan waxa ay kala garan karaan meesha wadada laamiga ah iyo meesha dadku maraan, taasoo u fududaynaysa inay wadada baabuurta ah dhex marin. Dadkan tijaabada lagu sameeyay oo 6 qof ah ayaa waxa la soo hordhigay kombiyuutar madow, waxaana lagu yiri waxaad sheegtaan marka ay dhibic cad ay ka soo dhex muuqato. Kulligood waxa ay awood u yeesheen inay si sax ah u sheegaan. Nin la dhaho Benjamin Spencer oo ka mid ah dadka tijaabadan lagu sameeyay oo da'diisu tahay 35 jir ayaa waxa uu sheegay in markuu 9 jir ahaa uu indhabeelay, hadda laakiin markii kaamirada oo sidii ookiyaalo oo kale ay u gashanayaan lagu xiray uu awood u yeeshay inuu arko humaaga iyo qaabka guud ee xaaskiisa iyo carruurtiisa. Nin kale oo dadkan ka mid ah ayaa waxa uu sheegay in kursigiisa caddaa ee gurigiisa dhex yaalay uu garan karo meesha uu yaalo. Haddaba inkastoo dadkani aysan si fiican wax u arkayn ayaa haddana kaamirada maskaxdooda muuqaalada u diraysa ay u fududaysay in muuqaalada iyo iftiinada kala gadisan ay kala garan karaan. Dhakhaatiirta iyo saynisahanada barnaamijkan sameynaya ayaa waxay rajo ka muujiyeen in muddo kadib horumar laga gaari doono sidii teknoolojiyadan looga faa'iideysan lahaa oo aragga loogu soo celin lahaa dad badan oo indhool ah oo aan rajo ka qabin in maalin araggooda u soo laabto. Barnaamijka maanta mowduucan uga hadlay haddii aad Ingiriiska taqaanid, fiidiyowga hoostiisa ayaa waxaan soo geliyay fiidiyoyo iyo maqaaladii aan warbixintan ka soo aruuriyay. Haddii aad marka rabtid inaad daalacatid halkaas ka fiiri. Haddii aad faa'iido ama cilmi aad ka kororsatay fadlan like saar fiidiyowga. Haddii uu waqti lumis ahaana dislike saar.
wixii aragti oo aad ka qabtidna hoos ku soo gudbi. haddaba intaan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.